Malcolm X mid ka mid ah dadka ugu saameynta badan ee taariikhda soo mara wuxuu ahaa geesi naftii hore ah kuna shahiiday si ay dadka muslimiintu u heli lahaayeen xorriyad. Wuxuu qayb weyn ka qaatay fidinta diinta Islaamka ee Mareykanka gudihiisa, sidoo kalena wuxuu ahaa nin u soo dooday xuquuqda dadka madowga ee dulman. Haddaba ku soo dhawaada information ku saabsan Malcolm X ama Alxaaji Malik Shabazz. Are you not, perhaps, afraid of what might happen to you as a result of making these revelations? Oh yes, I probably am a dead man already. Malcolm wuxuu ku dhashay magaalada Omaha gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka bishii May sanadkii 1925. Markuu dhashay waxaa loo bixiyay Malcolm Little oo ah magaceeda dadka madowga loo bixin jiray. Malcolm wuxuu caan ku ahaa inuu u doodo xuquuqda dadka madowga ah. Wuxuu naftiisa u huray si ay dadka madowga iyo guud ahaanba muslimiinta waddanka Mareykanka u heli lahaayeen xorriyad iyo inay dadka caddaanku joojiyaan gumaysiga ay ku hayaan dadka madowga. Wuxuu ahaa geesi naftii hore ah oo in badan dadku aysan aqoon. Malcolm aabihi wuxuu ahaa nin baadari ah oo haysta diinta Nasaarada. Nolosha Malcolm waxay ahayd mid aad u adag. Wuxuu la kulmi jiray dhibaatooyin aad u daran oo kaga imaanaysa cunsuriyiinta dadka caddaanka ah. Mareykanka waqtiga waxaa ka jiray cunsuriyadtii ugu xumeed oo lagu hayay dadka madowga. Sidoo kalena aabihii wuxuu la kulmi jiray hanjabaad iyo cagajugleen aad u daran. Markay da'diisu gaartay 6 sano, Malcolm waxaa la dilay aabihiisa waliba si wuxuushnimo ah. Dilka aabihii waxay saameysay reerka oo dhan. Malcolm hooyadii waxay la dhibtootay dhaawaca iyo murugada ka soo gaartay dilka sayigeeda. Muddo kadib Malcolm hooyadii way waalatay. Waxaa la geeyay meelaha dadka dhimirka ka buka lagu xanaaneeyo. Malcolm wuxuu markii ugu horeysay dhadhamiyay xanuunka aabba iyo hooyo la'aantu ay leedahay. Carruurtii isaga la dhalatay waxay ahaayeen kuwo aad u yaryar, waxayna u gacan galeen caawimaadda ay dawladdu siiso dadka yaryar ee agoonta ah. Hase ahaatee dawladdu hal meel may wada dejinin, waxay kala geysay gobolo kala duwan. Malcolm wuxuu haddana waayay walaaladii. Intii uu joogay xeryaha agoomaha wuxuu galay iskuul, balse muu ahayn iskuul wanaagsan. Wuxuu bilaabay inuu u gooyo iskuulka, sidoo kalena iibiyo daroogada iyo walxaha mamnuuca ka ah waddanka Mareykanka. Waxa ku kalifayna waa ahel la'aan. Markaas da'diisu waxay jirtay 7 sano. Markii da'diisu gaartay 16 sano jir, Malcolm waxaa loo taxaabay xabsiga sababtoo ah waxaa lagu qabtay iibinta daroogada iyo isagoo ka soo jeeda dadka la yaso oo ah dadka madowga. Iskuulka sare wuxuu ku dhammaystay jeelka gudihiisa. Malcolm wuxuu dareemay markii ugu horeysay macnaha ay leedahay xorriyadda iyo nolosha wanaagsan. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo gaartay fariin ka timid walaaladii, waxayna u sheegeen inay galeen diin cusub taasoo u gaar ah dadka madowga oo waliba ka badbaadinaysa dhibaatada ay ku hayaan dadka caddaanka. Diintaas waxay ahayd mid sheeganaysa diinta Islaamka, waxaana ka madax ah nin sheegtay nabinimo magaciisana la dhaho Muhammad Alija. Muhammad Alija wuxuu madax u ahaa urur ama koox la dhaho Ummatul Islaam. Kooxdani waxay ahaayeen kuwo in badan ka marin hawaawsan macnaha dhabta ah ee diinta Islaamka. Waxay tukan jireen 2 jeer maalintii, mid galinka hore iyo mid galinka dambe ah. Diintana si yar oo fudud bay ugu fiday waddanka Mareykanka gaar ahaan dadka madow. Malcolm wuu ku qancay diintan oo wuu qaatay. Wuxuu noqday qof diin leh, haba ahaato diin lunsan, laakiin xeer iyo kala dambeyn aan hore u dareemin ayuu dareemay. Intuu jeelka ku jiray wuxuu gudagalay inuu dadka iyagana jeelka kula jira diinta ugu yeero, isla markaana ay ka dheeraadaan beenta, xaaraanta iyo wixii la mid ahbo. Dad badan ayaa gacantiisa ku soo galay diintan iyo fikirka uu xambaarsanaa. Arrinkaas wuxuu keenay in Malcolm laga sii daayo jeelka isagoo aan dhammaysanin muddadii lagu xukumay. Aqoonta iyo kartida uu lahaa wuxuu ku kasbaday magac iyo caanimo. Sanadkii 1953 waxaa loo magacaabay afhayeenka koobaad ee kooxda Ummatul Islaam, wuxuuna iska bedelay magaciisii ahaa Malcolm Little asagoo ka dhigay Malcolm X. Macnaha X waa qof aan la garanaynin meesha uu ku abtirsaday, isagoo ku fasiray in Malcolm Little uu yahay magacyadii adoonsiga. Malcolm wuxuu noqday nin caan ah, dad badan ayaa aaminay fikirkiisa, sidoo kalena muu ahayn qof cabsanaya ama ka leexanaya hadafkiisa. wuxuu ahaa daaci fidiya diinta Islaamka balse aanan aqoon u lahayn diinta uu fidinayo. Wuxuu aaminsanaa in diinta Islaamku tahay diinta ninka madowga oo kaliya. Sanadkii 1964 wuxuu tagay dhulka barakeysan ee Makka iyo Madiina, halkaas uu ku arkay wax ka duwan aragtidii uu ka aaminsanaa diinta Islaamka. Malcolm wuxuu la kulmay dad muslimiin ah oo haysta diinta Islaamka ee dhabta ah. Wuxuu arkay ummad cadaan, madow iyo Carab isugu jira oo gudanaya waajibaadka xajka. 12 cisho ayuu ku bedelay fahankii uu ka
qabay diinta islaamka wuxuu bartay sida salaada loo tukado. Wuxuu akhristay kitaabo badan oo ka waramaysa diinta asaaskeeda muhiimka ah. Wuxuu dareemay raaxo uusan hore u dareemin macaanka ay leedahay diinta islaamka ee dhabta ah. Intuu joogay dhulka barakeysan wuxuu la kulmay culimo, madax iyo dad kala duwan oo muslimiin ah. Inkastoo uu joogay muddo 12 cisho oo kaliya, waxay bedeshay noloshiisa oo dhan. Xajka kadib wuxuu dib ugu soo noqday Mareykanka isagoo bilaabay inuu diinta islaamka ku fidiyo sida saxda ah. Wuxuuna kulan la qaatay Muhammad Alija, wuxuuna u soo bandhigay diinta islaamka ee saxda ah, balse way ka biyo diideen. Kadib Malcolm wuxuu iclaamiyay inuu qaatay diinta islaamka ee dhabta ah. Dabeetana wuxuu aasaasay koox kale oo la yiraahdo Jamaacatu Ahlus Sunnah isagoo ka dhex baxay kooxdii uu Muhammad Alija hoggaanka u hayay. Wuxuu baahiyay diinta isagoo dadka ugu yeeray inay maraan wadada saxan. Waxa gacantiisa dadka ku islaamay kamid ahaa feeriyaankii caanka ah Muhammad Ali Kalay ee uu ku qanicay inuu qaato diinta islaamka. Malcolm wuxuu noqday xidig ka dhex baxay mujtamaca uu la noolaa. Dadkii waxay isku soo wada shubeen ururkiisa oo ay u arkeen midka kaliya ee keeni kara xuquuqda dadka madowga. Muhammad Alija iyo kooxdiisaba waxay ka xumaadeen horumarka uu gaaray Malcolm, waxayna isku dayeen inay dilaan. Malcolm waxaa soo food saartay dhowr cadow. Muhammad Alija oo diin khaldan watay, sidoo kale waxaa dagaal ba'an ku hayay dowladda Mareykanka iyo saxaafadooda. Sanadkii 1965 xilli Malcolm X jeedinaya khudbad, waxaa si shirqool ah ku toogtay 3 dhagar qabayaal ah oo ka socday kooxdii Muhammad Alija, iyagoo fuliyay falka toogashada. Halkaas buuna ku dhintay Malcolm X.